14 eray oo gabar walba oo aad ku dhahdo qalbigeeda dhalaalinaya. Inta aynan barnaamijkan bilaabin, haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato channel-keenan, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto lana wadaagto asxaabtaada si uu u gaaro dad badan. Number 1. Waan kuu xiisi doonaa marka aan kula joogin. Adiga ayaan kaa fikiraa. Marka aan kaa fikirana, waxa aan doonayaa inaan kula joogo. Marka aan kula joogana, waxa ay la micno tahay dhammaan riyooyinkayga in ay rumoobeen. Number 2. Waxaan arkay inaad wanaagsan tahay, waana ku jeclaaday. Kadib waxaan arkay inaadan aad u wanaagsaneyn, waan ku sii jeclaaday. Number 3. Waxaan jacayl kuu qaaday marar badan, markastana adiga ayaan ku jeclahay. Number 4. Nolol aad adiga ka maqan tahay waa sida qalin jabay oo kale, waana macno la'aan. Number 5. Kahor intaanan kula kulmin, marnaba ma ogeyn waxa ay ahayd oo kale inaan iskaga kaa dhoola caddeeyo micno la'aan. Number 6. Waxaad mudan tahay dunida oo dhan, balse kuma siin karo. Waxaan ku siin karaa oo keliya ayaa ah duni wanaagsan oo dhankayga ah. Number 7. Mararka qaar adiga ayaan kaa fikiraa. Marka aad iga maqan tahayna nafteeda waa la qoslaa, balse dadku waxay i moodaan inaan waalanahay. Number 8. Dhageysiga codkaaga gabagabada maalintii waxa uu ka dhigaa nolosheeda mid qiimo leh oo mudan inay noolaato iyadoo ay jiraan culaysyo. Number 9. Farxad ayaan dareemaa marka aan ku ag joogo. Number 10. Waan ku jeclahay, kugumana jecli waxaa tahay keliya balse qofka aan ahay marka aan kula joogo. Number 11. Waxaan isku dayay inaan noolaado la'aantaada, balse waan shalayay. Number 12. Boqolaal qalbi xitaa ma qaadi karaan jacaylkaan kuu qabo. Number 13. Jacayl xad dhaaf ah ayaa mar kale iyo mar walbaba aan kuu qaadaa markaan ku arko. Number 14. Had iyo jeer waxaa tahay jawaabta markuu qof i weydiiyo waxa aan ka fakaro. Gabar walba oo lagu dhaho erayadan, qalbigeeda ayay dhalaalinayaan. Haddii aadan dareensiinin inay qiimo leedahay, yaa kale oo dareensiin karaa? Barnaamijkeeni maanta halkaas ayuu ku egyahay. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.